ورحمة الله وبركاته walaalaha qiimiga badan ku soo ugu waaweyn barnaamijkeena waxa kamida madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu kala dhaxgalay Iran iyo Israel waxaana sheegay in Israel ay aqbashay in dhinaceeda ay joojiso dhammaan dhaqdhaqaaqyada dagaalada ay ka wada bariga dhexe warbixin cajiib oo arinta ku saabsan iyo Trump oo toos u soo faragashtay xaaladda Iran Israel ayaan ku haya qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heenayna waxa kamida Umar Artan wiilkii Soomaaliyeed oo lagu ciilay Soomaalinimada lagana soo celiyay Miami dalka Mareykanka halkaas uu uga qayb gali lahaa inuu ka mid noqdo dhexdhexaadiyaasha kubadda ciyaaraha adduunka World Cup-ka laakiin sheekada Umar Artan ayaan idinkaga diyaariyay warbixin cajiib oo ku saabsan sida Umar loo soo celiyay iyo waxa lagu haysto qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontayna waxa kamida madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka JD Vance ayaa ka jawaabi waayay su'aal ahayd in Israel ay jaajuustay Mareykanka madaxdeeda su'aashaas madaxweynihii Mareykanka ku xigeenkiisi JD Vance waa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka uu ka jawaabi waayay waxaan idin hayaa maqal iyo muuqaal iyo macluumaad arinta aanu toos diradda ugu saarayna qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku haynaa Professor Marandi oo reer Iran kana mid ah la taliyaasha sare ee hogaamiyaha Iran ayaa sheegay in Iran ay ku guuleystay dagaaladii ugu dambeeyay dhaxmaray Israel iyo Iran wuxuuna sheegay awoodda Iran hadda inay u cadaatay Mareykan Israel intaba inay tahay midaan waxba laga qaban kareynin qodobada iyo kuwa kale ayaanu barnaamijka sheegay inuu isaga toos u soo kala dhaxgalay Iran iyo Israel wuxuu leeyahay Trump hadda aniga ayaa toos garta u galay maalmihii u dambeeyay waxay isdhaafsanayeen Iran iyo Israel duqaymo oo la sheegay markii hore Israel inay si daran u duqaysay Lebanon gaar ahaan koonfurta ilaa waqooyiga taas oo dhalisay in Iran ay ka aamusi weyso digniina ay dhowr jeer jeedisay kadib Iran ayaa dagaalka toos u gashay oo dhowr iyo 20 gantaal markii ugu horeysay darad ku garaacday Israel ugu dambeynna Israel ayaa iyana Iran u soo jawaabtay Trump oo xilligaasi sheegay in rajo weyn uu ka leeyahay in dagaalku uu joogsado waxa uu hadda sheegay inuu isaga toos u wacay Netanyahu kana codsaday in uu joojiyo dagaalada waxaana sheegay in Netanyahu iga aqbalay inuu wax duqeyn kala sameeynin wuxuu yiri labada dhinac way is duqeeyaan waxba isku tuutureen bas hadda way joojinayaan labadaba iga aqbaleen buu dhahay labada dhinac way iga yeeleen xana Iiraanti uu la dagaalay buu hadda wuxuu isaga ka bariyaa dagaalkii inay joojiso wax talaaba qaadin Trump wuxuu leeyahay dagaal muxuu tarayaa shalayna waxa la lahaa Trump oo dagaal waa lagu baabaa joog maya waxbaan baabiinayna bula maanta wuxuu leeyahay waxa awoodnaa Iran dad badan ka dilno dad badan baa dhimanay maxaa faa'iideena dad badan in la dilo wax ma tarayso meeshan waxa kaaga soo baxaysa marka wax iska celiso ay naftaadu macna yeelanaysa laga baqaya inaad dhiman karto la ogyahay inaad noolaan karto la ogyahay laakiin markaad waxba ku fadhinin macna lahayn qiimahaaga kuma yimaado baryootan marka awoodaha adduunka laga hadlayo qiimaha waxa uu ku yimaadaa awood laga xishoodo ama lagu gula gorgortami kara inaad leedahay waxa la dhahaa wadanka dhaqaalihiisa ee dokumentigiisa waxa dhan waxay ku xiran tahay awoodda dalkaas u leeyahay miisaaniyadda uu ku fadhiyo bal ila daawo Donald Trump oo Iran iyo Israel kala dhaxgalay maanta fadhiyo ana aba toos u la xiriiro leeyahay We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that but he was hit he hit back and now they've called it quits so they're going to just leave each other alone for another week or something it's been going on for a long time you could say about 3,000 years if you really want but certainly it's been going on for 47 years but no he hit back they were going back and forth and now they both agreed through me to stop and we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc and the strait will open up right away it'll open up immediately upon signing which could be in 2 or 3 days Did you ask them not to hit back? No I said do what's right but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop it's had to do with Lebanon and it has to stop we want to get it finished There's a report. Trump wuxuu leeyahay waxa inay iga dhamaadeen rabaan Netanyahu waa la hadlay buu yiri waxa dhaynay waa lagu garaacay hadda waa garaacay waa lagu soo garaacay maanta waa la isgaraacaya George baan dhahay buu dhahay way iga aqbalay buu dhahay kuma eedeynay in isaga markii hore inta la duqeeyay haddana uu ka jawaabay haddana la duqeeyay marka in hadda uu ila qaatay mar dhow maalin ilaa 3 maalin 2 ilaa 3 maalin gudahood
dhiil fiican heshiis wanaagsan in la kala sixda ayaan rajaynayaa buu dhahay nuclearkii arrimihii taagnaa oo dhan lagu xalinayo marka lama garan karo nuclearka iyo heshiiskaas uu sheegayo waxa ka saxay suurtagalnimadiisa laakiin Trump wuxuu leeyahay macnaa waxaan 40 iyo dhowr sano soo socotay kubanaan sano socotay waxba laguma kala qaadayo horay gadaal un baa la isu wadaya marka wuxuu leeyahay waxa inay naga dhamaataan rabnaa marka iskama imaanin Trump inuu inta soo istaago oo sidaan u hadla oo Netanyahu ka baray Iran iska daa waxay ku timid drone waxay ku timid dooman dheeray waxay ku timid gantaalo ridda dheer leh iskama imaan waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka ayaanu toos u galeynaa Umar Artan waa Soomaali noqday garsoore waliba noqday garsooraha ugu wanaagsan qaaradda Afrika waxaana FIFA u shaqeynayay ama uu kamid ahaa garsoorayaasheeda ilaa sanadkii 2018 waa nin dhalinyaro ah oo Afrika aad looga jecel yahay ninkan waxa uu hadda nasiib u yeeshay in ciyaaraha adduunka 2026 uu noqdo garsoora koobka ka dhacaya dalalka waqooyiga America oo ay kamid tahay Canada Mexico USA inuu garsoorayaasheeda kamid noqdo nasiib u yeeshay waliba waxa cajiib ah wiilkan wuxuu noqday garsooraha ugu wanaagsan Afrika macnaa aad baa loo jeclaaday sidoo ciyaarta intuu garsooraha ka yahay u kala wado FIFA aad baa looga aaminsan yahay wax kale oo dambiyo lagu haysta malahan wax uu bi'iyay ma jirto maxaa ku dhacay marka Mareykanka markuu shalay ka degay waa la soo celiyay Miami markuu degay dib ay u soo celiyay immigration Mareykan Istanbul baa lagu soo celiyay Turkiga waxa cajiib ah marka dhageysta ninkan warbaahinta sida uga hadlayso doodaha ninkan laga furay arintiis waa diyaabaysa wax kale lagu meeso Somali referee garsoore Soomaaliya ayaa lagu soo celiyay inuu Soomaaliya bal ka war hadii inaad Soomaali tahay ay caqabad kugu noqoto inaad Soomaali tahay inay caqabad kugu noqoto qof kasto aqli la damiir la intaas 10 ugu filan inaad Soomaali tahay heer waxa la marayaa caqabad ay noqoto xanaadi waxa isku yar ama koonfur baa ahayde ama waqooyi baa ahayde ama bari baa ahayde ama galbeed baa ahayde ama Puntland baa ahayde ama Somaliland baa ahayde ama Koonfurland baa ama Jubaland baa ahayde ama Baydhabo wax arad sheego maanta aniga aan kula hadlay qof kasto Soomaaliya heer kasta u gaaro tan Umar ku dhacdo ku dhacaysa masraxa caalamka markuu damcayno aad waliba wax ka daran ay kugu dhacana suurtagal dambi kale ma gelin Soomaali baa tahay darteed in aad Soomaali tahay ayaa dambi noqotay qurbaha ilmaha carruuraha meelahaas ku dhashay ayaa marka Soomaali laga sheekeynay iskuuladooda iyo jaamacadood mar walba waxay maqlaan dhibaatada Soomaali laga sheego ilaa qaarkood ilaa dadku isku adkaysamaan qaarkood ay ku adkaato inta ka imaado Soomaali baan inay dhahan inay ku adkaato waxaasna ma ahan dad waxaan noqonay ay ka beec mushtaraan siyaasiyiin laakiin waxaan ku sheegaa dadka Umar oo kala Umar Artan oo kala markay sidiis ku dhacdo waxay uga faa'iideystaan wadankaas oo dhan ay ku bedelaan wuxuu abuuri karaa isbedel wixii asaga ku dhacay qof dambo Soomaali inuu isku dhicin oo sameyn kara laakiin qofka Soomaaliga markay musiibo noocan oo kala culays noocan oo kala ku dhacdo wuxuu u adkeysanayaa dhibti waayo dadka wadwaditaankiisa inaan laga dareemin inuu jabay inuu iskala jeclayn iyo laakiin adduunku waxay dhahan wixii la igu sameeyay ilmahan dhalay ilmahay si dhalaan iyo qof dambo Soomaali in lagu sameeyo mar rabo inta cilada ka imaado siyaasadda way siyaasadda inay wax ka bedelo shaki igama jiro Umar iyo dadka la mid ah haday kacaan inay kacdoon abuuri karaan inay isbedel abuuri karaan inay dalkan bedeli karaan in wax weyn la qaban karo hadii la helo 10 qof oo Soomaali oo nadiif ah oo qabiil shaqo aan ku lahayn oo aqal leh oo caafimaad leh fiiri heeriya dadkan dul saaran musiiba dadkan ku dhacday wallahi meeshay doonaan ha joogan musiiba ku dhacday qabyaalad qof aan waxba ku tarin maalin weyd baa waxaan dhahay dad waxaan nahay xaraan ee cunin oo ololeynayo nin siyaasi sidoo u dhargi laha ayuu qofka Soomaaliga ku faanaya inuu xildhibaankeenu wasiirkii waxnu ma qabto wuxuu ku faanayaa ninka isku qabiilka yihiin xaraanta uu cunayo adduunkan waxaan maraynaa inaan Soomaali nahay adoo fiisaha ku saxsan shaqada u socoto la ogyahay dambi kala aadan gelin in lagu soo celiyo midabkaada Soomaaliya warqadaha wadataa Soomaaliya khalaas dambi ma aadan gelin shakhsiyan balilada warbaahinta sida uu hadlayay wiilkan Soomaaliga FIFA are having to deal with an unfortunate and embarrassing situation as Africa's top referee has been refused permission to enter the US. Omar Artan was set to become the first Somalian to referee at a World Cup, but he was turned back when he landed at Miami International Airport, and he's now back in Istanbul.
He believed he had a valid visa to work in the US, even though Somalia are on the US's travel ban list. Artan was the Confederation of African Football's 2025 Referee of the Year, and he's been a FIFA referee since 2018. An advisor to the Somalian Sports Ministry, Sise Adan Abshir, has told AFP Omar is one of Africa's most respected referees. Denying him entry not only harms him personally, but it also undermines football's commitment to fairness, merit and the spirit of fair play. Omar Artan was due to be one of the 170 officials working at this World Cup, but he's currently back in Turkey. 170 garsoorayaal iyo shaqaale FIFA oo ciyaaraha World Cup ka shaqeyn lahaa garsoorayaashooda ka mid noqon lahaa ayuu ka mid ahaa. Waxa uu ninkaas shaqadiisa ku waayay meeshii uu u socday inuu Soomaaliya khalaas dukumeentigiisa inuu Soomaaliya asaga inuu Soomaaliya wax kale kuma weyn ninka hadii maanta aan wax la fahmin anu ma garanay goorta wax la fahmayo waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka JD Vance ayaa ka jawaabi waayay su'aal ay weydiisay warbaahinta gaar ahaan Fox News taas oo ahayd ka waran baa lagu yiri in Israel ay annagana jaajuusayso waxa dhahaysa idaacadda Fox News ama TV-ga Fox News oo saaxiib la Israel iyo Mareykan Trump iyo Mareykan macna Mareykan laga leeyahay maamulka Netanyahu aad u taageertay idaacaddaas iyo Trump iyo kooxdiisa macna madaxweyne ku xigeenkii Mareykanka waxa la yiri waxaana jaajuusayso Israel aan saaxiib la inuu intaas aan difaacin daneeda ka shaqeynayo bal ka waran baa lagu dhahay waxa uu leeyahay JD Vance su'aashi meel kale la aaday meesha laga rabin su'aashi aad wuxuu leeyahay Iran Israel heshiiskoodii buu aaday macnaha way ku adkaatay in uu su'aashi la weydiiyay aadi waayo adduunku waa wax laga dhinto in lagu jaajuuso oo dalkaaga la jaajuuso oo la ogaado cid saaxiib isaga ka dhigaysay in haddana ku jaajuusayso dawladaha waa meesha ugu dambeeyo oo ay isku khilaafaan bal ila daawo su'aashi isoo u qalqalay. So how concerned are you about Israel spying on the United States and freelancing in Lebanon? Well, look, I think obviously the Israelis and the Israelis and the United States, we have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. And I think where the president has been very clear here is that while Israel obviously has some objectives that it has, the United States' main objective in Iran is to ensure that Iran does not have a nuclear weapon. And we've actually, thanks to what's happened over the last few months, but really over the last year and a half, we've created the space necessary where the president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America. So we're going to keep on pursuing it because that's what the President of the United States was elected to do. That's what we have to do in order to properly serve the American people. Do you think the Iranians are trying to play us at the negotiating table? Well, I think, Jesse, kaas waxa uu JD Vance qayb kamid hadalkiisa inta kale ana wada dhageystay waxba su'aashi la weydiiyay kama jawaabayo waxa la dhahay sidee uga walwalsan tahay ama u dareemaysa in Israel annaga ay jaajuusayso wuxuu ku leeyahay Israel annaga waxa jira dana aan ku kala duwanahay in Israel danteeda ay fiirsanaysaa waxay iska difaacaysaa Iran bad kale u galay wali markuu ugu horeeyay wuxuu leeyahay aniga Israel meelaan ku kala duwanahay jirto excuse me leeyahay anaga raali ahada annaga Israel bule macnaha waa madaxweyne ku xigeenkii dalka Mareykanka wuxuu ka jawaabi la yahay su'aal basiid ah oo xaq u leeyahay inuu dhaho waa khalad in la jaajuuso ana waxa fahmi kartaa saameynta adduunka la isku yeelanayo marka siyaasadaada iyo gudaha lagu soo dhex galo oo madaxweyne ku xigeenkii ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana la taliyo sare oo ka mid ah la taliyaasha hogaamiyaha Iran waxa uu Maxamed Marandi siiyay waraysi wariyaha weyn PS Morgan waxana wax laga weydiiyay dagaalkii Iran iyo Israel maalmihii ugu dambeeyay socday waxa uu sheegay in dagaalkii ugu dambeeyay ay Iran mar kale ku gacan sareysay waxa markaa la weydiiyay oo aan idin la wadaagi doonaa Professor Marandi waxa uu arintaasi ku saleeyay in uu sheego in Iran ay ka awood sareysay Israel dagaalkii ugu dambeeyay waxa uu marka aad eegto maalmihii u dambeeyay weerarada dhacay iyo mar walba oo
waagii hore Iran baa la soo weerari jiray Iran baa dhihi jirtay weerarada la joojiyo laakiin waxa uu yiri hadda Iran Lubnaan bay u hiilisay Israa'iil baa isku dayday weerarkii Iran ay ku dhufatay Iran ay ka jawaabto Iran si weyn isku difaacday naha qaabka weerarada ay u dhacayaan ay jawaab celimada ayaa waxa kugu filan buu yiri cadeyn cad ama cadeymo waaweyn oo muujinaya in Iran ay ku gacan sareysay dagaaladii ugu dambeeyay waa kana Professor Marandi oo arinta qaada dhigayo said that Iran has the upper hand. What do you base that on? Well, I think we've seen yesterday and today in the last couple of weeks, the last two times that the Americans carried out an assault on Iran over the last couple of weeks. And this is one of the extraordinary things that prevents any sort of ceasefire and agreement, because the United States keeps attacking Iran. But the last two times, the Iranian response was been very heavy-handed over the past 10 days or so. And then yesterday we saw what Iran, and this morning we saw what Iran did to the Israeli regime. They said themselves that they want to flatten Beirut. And of course in the West no one cares about the people of Beirut, so the Iranians had to step in. They thought Iran was bluffing, and Iran wasn't. And not only did Iran hit back, it hit back very hard. So obviously it has the upper hand. But also when it comes to morality, Pierce, they're carrying out genocide in Gaza. Just today they've been killing more kids. In the West Bank they murdered a 7-month-old child. And in Beirut they're killing kids every day. Aswaxu Professor Marandi oo si weyn u sharxay waxa uu yiri bilowgii markii ay Iran hadashay ugana digtay Israa'iil inay joojiso duqeymada ay ka wada Lubnaan taas oo ay shacabka reer Lubnaan ku baabiinaysay oo ay ku dhibaataynaysay reer galbeedku ma kala jecleen buu yiri laakiin Iran ayaa ku qasbanaatay inay difaacdo dadka reer Lubnaan waxna Israa'iil u digtay dignina inay joojiso waxa ay ka wada Lubnaan Israa'iil waa iska indhatirtay Iranna waa ay jawaabtay oo waxay ku dhufatay duqeyn gudaha Israa'iil markii ay soo jawaabtayna mar kale Iran waa ay jawaab waliba si adag ay uga jawaab celisay taas oo muujinaysa buu yiri in Iran aysan kaftamayn waxa ay sheegaysana ay ka dhabaynayso waxa uu yiri dhinaca marka laga hadlana damiirkana Israa'iil waxa uu yiri waxay wada xasuuq dhibaatayn caruur iyo dumar halka Iran ay badbaadinayso dadka dhibanayaasha ay la dhibaataynayo ugu dambeyn dagaalka bariga dhexe waa la isku bartay heer waxa la gaaray Trump oo dhaqameed laga dhigay booskiisa la fadhiisay waxa la dhigay 70 dhowr sano jirta 80 sano gashay xagga noo fariiso anaga iyo Israa'iil dhexdhexaadi hadda isaga wuxuu leeyahay labada waa la hadlay dagaalka joojiyaan darsiga laga qaadan kara muxuu yahay mid qof aan mararka qaar cid aanan awood ka